kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada kanaalka qalbi Soomaali TV. sanad kasta dad aad u tiro badan oo aan la soo koobi karin ayaa siyaabo kala duwan ugu dhinta dunidan aynu ku noolnahay. waxaase jira dhimashooyin taariikhda galay oo naxdin ay u dheer tahay qaabka ay u dhaceen. sidaa daraadeed muuqaalkan waxaan idinku soo gudbinaynaa dad caan ah oo Soomaaliyeed oo dhintay intii lagu guda jiray sanadka 2019. laakiin daawade haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato kanaalkan qalbi Soomaali TV si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay barnaamijyada xiisaha badan ee aanu soo tabino markasta, fadlan calaamadda subscribe ka taabo kadibna calaamadda gambaleelka taabo oo furo. intaa kadib waxaad la socon doontaa wixii cusub ee kanaalkan aan soo gelino. allaha u naxariistay axmeddey abubakar oo ka mid ahaa fanaaniintii ugu caansanaa hobolladii waaberi ayaa sanadkii 2019 dhammaadkiisii ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. fanaankan waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta ugu caansanaa hobollada waaberi, sidaa daraaddeed burburkii dowladdii Soomaaliya kadib waxa uu guuray dalka Yemen, halkaas oo muddo dheer uu ku noolaa, balse geeridiisu waxa ay ugu timi magaalada muqdisho. sidoo kalena daawadayaal abwaan maxamuud cabdilaahi ciise sangub oo ku magac dheeraa sangub ayaa ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed ee caanka ee geeriyooday sanadkii 2019. abwaankan waxa uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. haddaba sangub waxa uu ka mid ahaa abwaanada ugu waaweyn taariikhda dalka Soomaaliya ama geyiga Soomaaliyeed oo dhan, isagoo sameeyay riwaayado iyo heeso badan oo caan ka ahaa dalka guud ahaan. sidoo kalena daawadayaal sanadkii tagay ee 2019 waxa uu inaga galaaftay dad badan. ilaahay dhammaantood ha u naxariistay. dadka kale ee geeriyooday ee geeridiisa laga dareemay Soomaalida dhexdeeda waxaa ka mid ahaa taliyihii guud ee ciidanka booliiska Somaliland oo loo yaqaanay Cabdilaahi Fadal Iimaan, wuxuuna ku geeriyooday magaalada Hargeysa. dhinaca kalena daawadayaal sanadka tagay 2019 waxa inaga dhintay dad aad u qaaliya. allaha u naxariisto dhammaantood. waxaana ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariisow oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaadhay qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 24 Julaay 2019. haddaba Yariisow ayaa lagu daaweynayay cisbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo loo qaaday maali kadib qaraxa, halkaasoo ugu dambeyntii uu ku geeriyooday. sidoo kalena daawadayaal dadka caanka ee Soomaaliyeed ee geeriyooday sanadkii 2019 waxaa ka mid ah allaha u naxariistay Maxamed Cali Kalay oo ku geeriyooday magaalada Baydhabo. haddaba Professor Maxamed Cali Kalay oo ka mid ahaa aqoon-yahanada iyo bahda waxbarashada Soomaaliyeed, marxuumka ayaa hore u soo noqday wasiirka waxbarashada ee dalka, sidaa daraaddeed waxa uu geeriyooday 2019. ugu dambeyntii daawadayaal dadka Soomaaliyeed ee caanka ahaa ee geeriyooday sanadka 2019 waxaa ka mid ahaa Xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf Cabdiwaraabe. allaha u naxariistay. waxa uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa, wuxuuna ahaa xildhibaanka ugu daada weyn golaha guurtida Somaliland. dhinaca kalena marxuumka waxa uu ahaa mudanaha ugu daada weyn golaha guurtida, iyadoo daadiisa lagu qiyaasay in ka badan 100 sano. wuxuuna ahaa hogaamiye dhaqameed ka qayb qaatay soo afjaridda colaadihii u dhaxeeyay beelaha Somaliland 1990. sidaa daraaddeed geerida marxuumka ayaa si weyn looga dareemay magaalada Hargeysa iyo guud ahaan geyiga Soomaaliyeed, iyadoo dad fara badan ay buux dhaafiyeen gurigiisa oo ku yaala magaalada Hargeysa si ay tacsida u gutaan. haddaba daawadayaal dhammaan dadka inaga geeriyooday ilaahay ha u naxariisto. sidaa daraaddeed aynu u ducayno.